بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. waxaan joognaa madrasadan aad u jeedaan oo quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu barto oo rabno qof kasto muslim ah oo codkeena uu soo gaaro inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii wax kula baxo. madrasadan saad aragtaan waa hal qol oo yar oo jiingad ah, wuxuu leeyahay balood weyn buu leeyahay, malaha waxa la yiraahdo deyr malaha waxa la yiraahdo musqul biyo malaha. wada ogtiin walaalayaal xaalad adag oo iska abaaraha lagu jiraa. waxaan codsanaynaa qof kasta oo muslim ah oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala jecel in uu madrasadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala daraadii uga qayb qaato oo wax ka dhiso. ilmuhu qoraxda aad u kulul, xilli kulul baa lagu jiraa, waa jiingadii waa meel cariiri way waasac ma aha, dhulkina way haystaan. insaan horeyba u sheegnay darbina ma laho, biyana ma laho, musqulna ma laho, dameeraha iska soo galayo. waxaan codsanaynaa qof kasta oo muslim ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay oo muxsin ah in uu madrasadan wax ku darsado oo ka qayb qaato dhismadeeda, oo darbi iyo qolal kale oo waasicino. bolood way haysataa, aan biyo u sameeyno oo nu sameeyno wax la yiraahdo deyr, oo nu sameeyno wax la yiraahdo musqulo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshii lagu baranayo wax ku darsado ajirka uu leeyahay iyo fadliga uu leeyahay oo garanaya qof kasta oo muslim ah. madrasadan waxay ku taalaa degmada Dolow ayay ku taalaa. waxaan codsanaynaa qof kasta oo muslim ah haday tahay dadka degmada degan iyo haday tahay dadka codkeena uu soo gaari doono dhamaanteen inaan ka qayb qaadano dhisno. Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasta wax kula baxayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankiisa xasanaadka ugu kabo waxa uu jecel Ilaahay subhanahu wa ta'ala. danyaraha madrasada dhigto haday awoodaan kol horaaba ayakaaba dhisi lahaaba, agoon baa dhigato, dad danyar ah oo iska bixin karin baa yaa dhigto. madrasada magaalada dhanka barakaca ayay uga taalaa. marka waxaan codsanaynaa qof kasta oo muslim ah inuu ka qayb qaato oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay. qof walba inta daaqadiisa oo wax uga qayb qaato oo dadkan dhisan waayay aan la dhisno. aad baad u mahadsantihiin. barakallahu fiikum. waa arkisan walaalayaal, waa majliskii diinta lagu baranayay nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxa ka ansaxay inuu yiraahday qofku markuu dhinto amalkiisa uu go'aya ilaa 3 mooyaan. 3 aan go'in waxa kamid ah sadaqa jaariya. sadaqada jaariyada waa sadaqada ku soconaysa markaad adiga dhimatay ka bacdi. sidaas darteed madaarista iyo meelaha Ilaahay quraankiisa lagu baranayo wixii lagu baxsadaa waa sadaqa jaariya. inta meeshaas la harsanayo oo biyaha u waxay la cabahayo oo baraagtii biyaha lagu isticmaalayo oo wax walba manfaacad u qabatay ay soconayaan ajirka ku socdo. marka halaga faa'iideysto. jazaakumullahu khayran. Ilaahay dartiisana waxa loola baxo hala kaalmeeyo oo kor loo qaado meelaha diinta lagu baranayo. dad badan waxay ku dadaalaan inay kor u qaadaan meelaha kale ee maadiga lagu baranayo. waad aragteen iskoolada waa dhagaxyo, waa meel habaysan oo u dhameystiran waxa la waxay u baahnayeen. dugsiyaalkii daashash bay u badan yihiin, meel ilmaha ay ku qorxaysan yihiin ay u badan yihiin. cid la raba in ay kor u qaadaan oo ay taqadum ku sameeyaan iyo horumar iyo inay si fiican u nooriyaan waa inaga. marka jazaakumullahu khayran. marba joogtaanbo ayna ka codsanaynaa inaad madrasaas aad kaalmaysaan, gacan ka geystaan. jazaakumullahu khayran.